يعملون فغلبوا انقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا بقى ملكين وزير قال لولي وإذن سلامي أصحابي كسر ما توحى الإذن وذا حنسود وينا يا لأقطعن أيديكم أساس كل شيء عمري عيسى من كما وتقاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب طلمان سودواد وتكود القرآن كاستاجينا سلام سودواد أصحاب طلمان كاستاج جوكتين وإن سلامينا سلام كسوق كشكي لابتا ما أنت محامش عمرتنوا لو ده وجي سامالك استو أركز سوين بطبتين ما صاحب كنا سودوادنا أصانيس كم برا السلام عليكم صاحبتي أنا وسلام كاستاج جوكتين ما أنت صاحبتي أنا مارتي مشان أول ما دي يجوا مارتي وحرسوكم من فيديو دبي marka waa jeclaystay inaan la qaybsado video waa la qayb qaato waan ku mahadsan yahay soo dhaweeyeen marka magacaygana waxaa la Cumar Ilkaase soo dhawaayaan leenahay idinkana soo dhaweeya Cumar Ilkaase maanta waxaan idin wadnaa barnaamij nooce barnaamijka maanta waa high class hadda midaas koowaad waxaan tacsi u darinaa intay dhammaan oo ku geeriyootay shirka ka dhacay Nairobi الله نحرسته ولا شيء نمونا مونا. ولا كان زكي انت حنوسن الله عافيه ayaan leenahay ilaahu naxariisto الله نحرسته dhamaanteena aan ka wada naxnay waa gabar walaasheena waa walaalkeena waa asxaabeen macala intii kala taa ku dhaawacmay ilaahay caafiyo caafiyo insha Allah marka barnaamijka aan idin wada maanta waxa waaye barnaamijkaas waxa waaye walaasheena qaali Ahmed kuma dheer qaaliladan inaan dhaw ma jecli fanaanteena may maanta hadda way ka baxday fanaan ka bilaabato hadduu diidana waa laga diina mano qofka hadduu wax diido waa laga daynaa marka fanaan ma dhahaayo waxaan dhahayaa walaasheena qaali Ahmed qaalidan xataa muraanis qaaliladan hataa leenga iyo kora uga baxay qaali Ahmed ama maskiinta ina Ahmed sida ay leeso laakiin ladan ahaan ana waxaan raacin lahaa maadaama caafimaad qabto qof ladan ma waa maskiin alle marka meeshana uma imaanin kameradan musoo hor istaagin jess ama views ku haysta camal ama waxaad uma imaanin shay aan ka naxo ama aan dhibsado ay soo istaajisay maanta xalay markaan daawday barnaamijka ay soo la imaatay walaasheena qaali Ahmed ay leedahay fanka waan ka baxay aniga waan ku farxay Ozil waan ku farxay waa gabar soo hanuuntay oo horaan ahayd heesaha qaadaysay cod macaanidaan dhigi karno laakiin fanki way iska daysay wayna ka toobad keentay Allah ay u laabatay qofka saasna Allah jecel anakana waan jecelnahay walaasheena qaali Ahmed waxaan ugu duceyneynaa inay saan ku sii socoto fankana Allah ka nin kasta ilaahay meesha uu talagalay uu aadaya marka wiilka maalin oo meeshii yuusa ku arkayna wuxuu dhaano fanaan noqoro wiilay macaldusiga dhigi kula wiil wallahi ku soo qaado fanaan ayaan aan rabay Soomaaliya meesha nooga yimid Soomaaliya Nairobi maade asoo fanaanimo noqoro haddana macaldusi waa marka Allah hanuunka والله wuxuu kula jeclaado wallahi marka walaasheena Allah wuxuu la jeclaaday inay fanka ay ka baxda dad aan dhahaya camal oo ma arkeenaa waxay uga baxday gabadha shalay dhimatay ama si shalay cabsi darteed Allah way ka cabsatay waa sax laakiin mid jirto waxa waaye hanuunka Allah iska la fahanteen Allah soo hanuuniye walaasheena inaan ku taageerno aan ku dhiirigelino ayaa la rabaa ma fahanteen marka qof kisto oo islaam ah ama Soomaali ah oo heesaheeda daawdo ama YouTube ama daawan jiray walaal macaan azin ani ahaan Ozil waxaan idin ka codsanayaa Allah jannatul firdaws idin ka baryaa inaad iska daysaan heesaheeda ama aad ka bixisaan waxa aad wadana dhahaysaan azin dad dhahayo ayaa jiro aniga ma dhahne hees soo qaad horaan qofka maxaa gal camal just like
heesihii aan dhegeysan jiray Axmed Beef oo hadda dhahayna arkay maxaa naga gala asaas soo qaaday saas ma arrinta walaalayaal waxaa waaye qofka duwa oo dhibsado waxa in laga daayo qofka Allah hadduu soo hanuuniyo uu dhahay walaalayaalow iga daaya tixgeli socodkiisa shayga uu dhaho iga daaya in laga daayo ayaa wanaagsan marka walaasheena markasta ay soo calaacalaysaa ma cafinayo ee tiri qofkii heesihayga dhegeysto ama YouTube-ka ku haysto أنا ورتا حلا في رسالة أو فيديو واسك هذا زي لكن أنا عندي ورتا أدي هذا أقول فرحي مركي هذا واسك في فنك مرت إلى نقضي ما دام أقل حمي وحس نقاد وهي سيفن وحس رحقلني وحيد هذا ومرت إلى وصل نقضي ومرت واسك في هذا نوع حس كده إلى دتك في رسالة يا أما مرت دتك فيديو هايو إن إسك كده فن وايو دون هذا حاجة وضد سكمل حدك أو مرت كلها محاجة قلني نعم أرنت هذا marka aan hadda ahaanteed wala aad ugu farxay ma tagari jirin maxaa lahaay heesada ma fiirsan jirin waayo markay dhalishay waa maartay aska dhafaxas waa isku day inaan maartay fiidiyoada fiirsado maartay qof kasta aan dhahnay oo qaaladan maanta waa iska dhaftay wixii ma maqash adaa kamid ah dadka kuwa dhahay Soomaan maartay waa wala aad ugu farxay gabadha walaasheeda markay iska dhaftay wallahi waxaan dhihi lahaa qof kasta fankaas ku jiro niyo fayada ma lahan wax ka keenaysidna ma lahan maartay ilaahay inuu soo noqoto wax xasuusnaatid way fiican tahay waayo maxaa la hadaa dhimatid oo heesa la dhageysto dambiga kugu socdo ama meel ku fiyo male meel kasta waa ka dilan tahay marka waxaan dhihi lahaa inaad ka martay gabadhan waxay dhabsanaysaa ka dhaaftiin fanaaniinta dhammaan waxaa aan ka codsanaynaa inay iska daayaan waayo walaaleyna tiin dad isku dhignaa dad muslimiina tiin inay iska daayaan fanka iskaga baxaan ayaan ka codsanaynaa waayo habeenkii markaa seexanaysid murugo ay ku seexanaysa inaad dhimanaysid inaad no ma taqaanid waqtigaa dhimanaysid dadkii shalay dhammaadeen oo tribka u jeedeen ma ogaa inay dhimanayaan waa may anaga laftarkeena hadda ma hadalka dhammaystiran doona xataa ma ogaa allah kuma fahanteed marka walaalayaal meel lagu soo taaganayo ma garanaysid marka waxaan dhihi lahaa shayga wanaagsan inaad raacdid dambi waan sameynaa laakiin waxaa la rabaa waxa yaani ka toobadkeen kartid inaad sameysid marka walaalayaal hadda ka hor waxaa xir aan ka dhex galo hadda ka hor waxaa la dhahay ruux yar ahaan tusaale ahaan soo qaadanaa ma hadda ka hor waxaa la dhahay nina waxaa la dhahay waa dhimanaysaa adi sax waxaana ku dilayaa la dhahay adiga qodax ku turtaa ku dilaysaa la dhahay wax kale kuma dilaayo sax qof bilaadan ma ku dilaayo markaasuu dhahay haddayba qodaxan as aragno may durayso ma dilayso saa la dhahay ha is ilaali aa la dhahay maalinkii dambe oo wuxuu koray guri dabaqo dheer oo koray dabaq maa qodax imaani dabaq oo kore suuqa marka dabaqa suuqa u dhex yaalay wuxuu arkay marka dadka waa iska xoolo jecel yihiin hilibka xoolo waxaas iska jecel yihiin wuxuu arkay maxaa la wan oo suuqa dhex marinayo idaalida kuwa madax madow wanna mal dhawo idaalida madaxa kuwaas oo meesha la marinayo waa arkeen sax marka waxaas dhaynay shayga wankaaga waa qurux badan yahay wallahi bilaani waa maartay ma soo gato uu soo degay wanka korkiisa marka waa aragtay Soomaalisan u taabtaa marka intaas gadan waa qiimeeyaan shay sax marka wankii uu saanta u dhahay gacanta fartu sii saaray duftiisa wax ku dhaxay qodaxdii qodaxda dooso ka maartay neef korkiisa ka turtay qodax xataa ma ahan waxaa la dhahaa waxaa waaye geed ka soo godana baadiye joog jira baadiye arkay oo waxaa qodax nafka ma ku jirin laakiin waxay ahayd bahasha la dhigto wala ana saas oo maqlay ma way ku duraysaa balse ku dhigi Soomaali dadka ku dhigi dadka ku dhigto waaye saas ku arkay saas oo ku arkay dufki wanki ayay isku dhashay saanu u taabtay dufki bahasha soo raacday no bahasha soo raacday marka wuxuu dhahay carabka iskaga bixisay iskaga goysay ay ilkaha ku qabatay ilkuhu ku qabanay ya carabkay ka durtay carabkay ayaa bararay ninka sidoo ku dhintay sax marka moodka maartay ku soo marayo wallahi inuu lama oga hadii la ogaan lahaa waa dardaarmayna waa dhimanaysaa bari hadii la sax waan dhihi lahaa waa iska dhaafay asxaabay u toobadkeen laakiin ma ogi haddana waanay naga tahay ma naga ah fiisraadis ma naga ahan maartay qof maartay wax kala kuraadis ma naga ahan fi maxay naga tahay waanis iyo ku cimri qaasho inta naga dambeysay inta naga horeyso annaga waxaan dhihi lahaa walaalaheenna waa jecelnahay lamana jecelin jidka waxaan la jecelnahay jidka wanaagsan waxaan leeyahay markastaba waan jecelnahay haddaad fanaantan tahayna waxaan ku dhihi lahaa maaragtay saaxiib macaan ka toobadkan anigana wiil walaalkaaga ahay maaragtay waan jeclahay wanaagaaga ma jecli xumaatadaada ma intaas arkaysid wanaagaaga u safanahay ma ahan xumaato ma u safnin wax kale raas ma u safnin waxaan u safanaa adiga waaniskaaga markastana waxaan jeclahay inaad maaragtay ku ximri qaadan doontid haddana waxaan ku dhihi lahaa saaxiib inaad la socoto wanaagaaga waa fiican tahay waa maadsan tahay saaxiib sidii saaxiibkeena uu sheegay waa sax marka walaasheenna Qaali Axmed waxaan jecelnahay sida hadda ay ku socoto inay ku socoto allaha ay u soo laabatay annagana waan ku faraxsanahay walaasheen macaan waan kula faraxsanahay midda kale waxaan dhihi lahaa qaaladan cimrigaaga ha jiro maaragtay nolow
hadda mid kale aan usoo laaban mar gabadhan Muna horta video iyada hees ee duubtay YouTube kuma jirto waa TikTok bis TikTok already ada qadka laga bixiyo iyo Instagram keeda kulli صح TikTok iyo YouTube na waa video riwaayad ay soo geliso macna leh kuwaas camal aad waxa oo dambi ay keenay malahan waa video oo لكن قف تقول انت حتى ما في انا وحيس اللي وضعه ما لك ياد واحد دمبي او سي جي او سي كان معنا صح لكن تيك توك قاعد iyo Instagram كده عادي qadka laga bixitay asaj kareys waa weynaysa dadka inta sameeyeen way ku mahadsanyiin marka mid kale qaaliladan maxallina jiro joog arintaad ku dhaqaaqdo war walaashayna waa markastana waa jecelnaa gabadha walaashayna yaan la dhihin ani midaan ka dadka aan ka daba qaadanayo waxay tahay oo run ay tahay waxa la dhahayaa azin waxay u cabsatay dadka dhinteen sax waa midaas way ku cimri qaadatay qofku ku cimri qaataa waa sax gabadha shalay agtaagneed ayadoo heesayso agtaagneed haddana way naga hooseysaa waa sax inay ku cibri qaadato walaasheenna sax waayo midaas anaa ku raacsan meeshaasna waa laba socdo anaga ku raacsan anaga ku dhiirigelinayna walaalaheena waxaan leenahay gabadhaas ee heesaheeda yaa la dhageysanin waxa ay noo sheegtay oo runta ah eena الله راعوا مفانتين مركا ولا ليال عاد كذا لو تحكي لي ولا ليال gabadhaas la iska daayo banaanka ha laga maro dadka kale waan rabaa inay kasoo bixaan reaction waxa waaye CK adigana waxaan jeclahay inaad reaction kasoo bixisid gabadhan oo ummadda dhammaan Soomaali aad tirid ka daaya waxa xun walaashayna hadda soo mafahantay CK iyo Asad Hajiyo reaction kasoo bixiya iyo dadka cabadka asxaabta badan walaalayaal gabadhan walaashayna la daayo maadaama ay codsatay in YouTube-ka laga bixiyo Daahir Calasow asagana waxaan leenahay gabadhan aad bay ku magac dhabaysaa adigana ina ka soo studio week oo ku jiraan ay sheegaysa home cable miyay cable kuwaas dhan waxay sheegaysay marka walaalayaal ummad Soomaaliyeed dad walaalanahay qofka haduu diido waxa xun laga dhaafo yaa lagu caadiyeen yaa lagu xumaynin hal dhaafo qaali Axmed على سكت يعني ولا شيء معا أنا كانوا كجعلناي هرم كجعلن هذا نو كجعلناي ساسنا كسرعة يعني كل ده أنا كلنا ما فهمت مركا ساس يو فيديو بس أسوق يجي